baro Ingiliishka mar kasta iyo meel kasta oo caalamka oo dhan aad ka joogtid. Waa mid ka mid ah mawaadiicdii ugu xiisaha badnaa ee aan abid soo gudbino. Waxa uuna ku saabsan yahay self study, wax isbarida. Self study, wax isbarida. Mawduucan qayb labaad ayuu leeyahay. Haddii qaybtaas labaad aad jeceshahay inaan kusoo darno, soo qor hal. Haddii aad leedahay halkaas inoogu joojina, soo qor 2. Self study, wax isbaridu is the process waa hanaanka of learning barashada by yourself, adiga naftaada, without a teacher, macallin la'aan. It helps, waxay ka caawisaa students, ardayda, become inay noqdaan independent, kuwa madax bannaan, and responsible oo mas'uul ah. Through inta lagu guda jiro self study, wax isbarida, learners, ardaydu, can improve, waxay horumarin karaan their knowledge, aqoontooda, skills, xirfadahooda, and confidence, iyo kalsoonidooda. One of the mid ka mid ah main advantages, faa'iidooyinka ugu waaweyn of self study ee wax isbarida is waa flexibility, dabacsanaanta. Students, ardaydu, can choose, waxay dooran karaan when, marka, and where, meesha, and what, iyo waxa they want, ay doonayaan to study, inay bartaan. They can learn, waxay wax ku baran karaan at their own pace, xawaarahooda, and spend, waxayna ku bixin karaan more time, waqti badan, on difficulty topics, mawaadiicda adag. Haddii aad halkan soo gaartay, laagta iyo flowda ha ka tegin. Sidoo kale haddii aad jeceshahay barashada luqadda Ingiliishka, waxaan bixinaa koorsooyin iyo casharo la isku halayn karo. Lambarka profile-ka ayuu saaran yahay halkaas, ayaad naga heli kartaa. Soo dhowow mar kale. You welcome.